Hyperloop waa tareen casri ah oo lagu tilmaamay mucjisadii qarniga oo macnaheedu yahay in marka aad ka baxdo gurigaaga oo tusaale ahaan ku yaala Dubai aad muddo 40 daqiiqo gudahooda ku timaado xafiiskaaga oo ku yaala magaalada Riyadh ee Sacuudiga adoo ku safraya gaadiid iskiis isku wada oo automatic ah. balse marka hore daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan Horfadhi Media. haddaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo taabo subscribe. tan iyo bilowgii bini'aadamka la abuuray safarku wuxuu ahaa mid muhiimad weyn inoo leh. micnaha safarka ayaa loola jeedaa ka safridda hal meel adoo meel kale aadaya. wuxuuna noqon karaa safar gaaban ama mid dheer iyadoo la eegayo masaafada ama muddada uu qaadan karo. dunida ayaa hayaan dheer ugu jirtay sidii ay horumar looga gaari lahaa dhanka safarka iyadoo dadku ay isku dayeen inay ku safraan habka ugu fudud uguna macquulsan uguna waqtiga yar. sidaa darteed bilowgii waxaa la isticmaalay dhammaan noocyada xayawaanada sida geela, fardaha ilaa uu ku fikiray samaynta gacmeedyo alwaax ah oo jiidaan xayawaanada fardaha iyo geelu ay ka mid yihiin. kadibna tartiib ayuu u socday hayaanka loogu jiro ka gungaadhida aaladda casriga ah ee haatan aynu ku jirno. waxaa la soo saaray aaladda mashiinka si loogu isticmaalo gawaadhida. intaa ka bacdiina horumarku si tartiib ayuu u kordhay ilaa uu gaadhay dhinaca badda iyadoo la isticmaalayo maraakiibta ku shaqeeya looxa kadibna maraakiibta shiraaca ilaa horumarku gaadhay wax soo saarka maraakiibta ku shaqeeya matoorada kuwaas oo awoodoodu kor u dhaaftay waxaana loo yaqaanaa power horse. iyadoo sidoo kalena bilowgii qarnigii 20aad ay nimankii walaalaha ah ee la oran jiray Wrights ay diyaarad sameeyeen taas oo aan hore loo arag oo noqotay aalad dheeraysa oo lagu safro. laakiin bani'aadamku intaas kaliya kuma eekaan oo wuxuu intaas kadib ku fikiray sida loogu safro gaadiid ka dheereeya xawaaraha dhawaaqa kaasoo ka badan xawaaraha gaaraya ilaa 1 kilomitir saacadiiba. mulkiilaha shirkadda Tesla Motors Elon Musk oo ah injineer Mareykan ah ayaa wuxuu ku dhawaaqay farsamo tiknoolajiyad cusub oo laga yaabo in aadamaha ay ku safraan mustaqbalka dhow taasoo ah gaadiid ama tareen xawaare sare leh. xawaarahaas oo lagu qiyaasay mid la mid ah xawaaraha dhawaaqa waxaana farsamada lagu magacaabaa Hyperloop kaasoo u ogolaanaya qofka socotada ah inuu u kala safro magaalada Los Angeles iyo San Francisco in ka yar 30 daqiiqo oo kaliya. mashruuca casriga ah ayaa u qaabaysan dhuumo waaweyn ama tuubooyin uu cufkoodu yar yahay isla markaana hawo yar leh si looga ilaaliyo isliska. sidoo kale waxaa ku dhex jiri doona barkimooyinka shilalka si looga yareeyo ama khasaaraha ka imaan kara xawaaraha sare ee ay aaladani ku soconayso. wuxuuna tareenkan casriga ah isku xidhi doonaa magaalooyin badan isagoo si dhaqso ahna ugu kala gooshi doona. tuumbadan ayaa aad looga ilaaliyay inay ku lisanto tareenka dhex maraya taasoo khubaradu ku sheegeen in laga dhigay kuwa ku shaqeeya matoorada magnetka ah ee loo yaqaano electric motor ee uu Michael Faraday uu soo saaray sanadkii 1821. matooradaas oo awoodda ka helaya tamarta qoraxda. sidoo kale waxa uu Elon Musk xusay in farsamadan ay kulminayso astaamaha tiknoolajiyada jiilka cusub taasoo ka dhigi doonta inaad ka guurto Abu Dhabi isla markaana Dubai ku gaadho wax ka yar 12 daqiiqadood gudahood. maadaama habka gaadiidka lagu dabaqayo tiknoolajiyada jiilka cusub wuxuu isku xiri doonaa xarumaha ugu waaweyn ee magaalooyinka adduunka oo dhan si ay u bixiso safaro qaadanaya waqti yar. marka waxaa suurtagal ah inay tareenku u kala gudbo inta u dhaxaysa Mareykanka ilaa Shiinaha waqti gaadhaya 2 saacadood oo kaliya. mashiinka dhismaha halkii tuumba ayaa la filayaa inuu kharashkiisu ka bato 10% qiimaha kharashka ku bixi lahaa tareenka caadiga ah taasoo ka dhigaysa in qiimaha kharashka Hyperloop ku bixi doonta ay tahay mid aad u sareysa. waxa uu Elon Musk ku xaqiijiyay warbixin mashruucan shirkadiisa isagoo leh Hyperloop waa tareen casri ah oo lagu tilmaamay mucjisada qarniga oo macnaheedu yahay in marka aad ka baxdo gurigaaga oo tusaale ahaan ku yaala Dubai aad muddo 40 daqiiqo gudahooda ku timaado xafiiskaaga oo ku yaala magaalada Riyadh ee Sacuudiga adoo ku safraya gaadiid iskiis isku wada oo automatic ah. waxaa kaloo xiiso leh in kooxda mashruuca Hyperloop ay isugu yeedhay ama ay isku magacaawday hal ku dhig kooban oo qof kasta uu fahmayo. waxayna ku sheegeen oraahdooda waqtiga ayaan u iibinaynaa dhammaan dadka safraya annagoo adeegsanayna tiknoolajiyadeena casriga ah taasoo ay ku macneeyeen in waqtiga oo ah shay muhiim ah ay dadka uga saacidi doonaan dhanka safarada daqiiqada gudahooda in lagu kala goosho dhammaan caasimadaha.
tijaabooyin hordhac ah ayaa muujinaya in xawaaraha Hyperloop ama tareenka casriga ah uu ka sareeyo xawaaraha dhawaaqa uuna ku socdo xawaare dhan 1200 oo kiiloomitir halkii saacadoodba. Tareenkan casriga ah ayaa awoodi kara inuu ku safri karo masaafada u dhaxaysa magaalada New York ee Mareykanka iyo caasimadda Shiinaha Beijing 2 saacadood, halka sidoo kalena inta u dhaxaysa Los Angeles iyo San Francisco uu ku safri karo qiyaastii nus saac. Waxayna taasi ka dhigan tahay goynta masaafo dhan qiyaas ahaan 1000 kiiloomitir halkii saac iyo xawaaraha aaladan ay ku soconayso oo gaaraysa ilaa 1200 oo kiiloomitir halkii saac. marka laga hadlayo nashqada tareenka ee farsamo ee loogu talagalay rakaabka waxay u muuqataa in halkii tuumbo ama dhuun ay qaadi karto 20 rakaab iyadoo ay suurtagal tahay in la diro oo dhuunta ay mari doonaan hal kamid ah tareemadaas nus daqiiqad kastaaba, taasoo yareen doonta dhibaatada ka dhalan karta ama halista dhici karta oo sababi karta in aalada Hyperloop ay isku dhacaan ama xitaa ay ka baxaan wadooyinka ay marayaan. waxaana jira masaafo fogaansho aamin ah oo u dhaxaysa aalad kastaaba ama capsule kastaaba, masaafadaas oo lagu qiyaasay 5 mayl, taasoo ah fikrad ku salaysan adeegsiga matoorada korontada ee cadceedda ku shaqeeya. waana nooc kamid ah matoorada uu Elon Musk u adeegsaday soo saarista gawaarida korontada ee loo yaqaan Tesla ee modelkooda S, kuwaas oo loo kala saaray inay yihiin gawaarida korontada ee ugu sareysa ee la isticmaali karo oo ammaan ah. sidoo kale aaladan u eeg qaabka kaniinka capsule-ka sida sawirada ugu horeeyay ay waxay muujiyeen in gudaha gaadiidkan ay kuraasta rakaabku tahay kuraas casri ah oo aad u fiican, waxayna ku jeedaan shaashada TV-ga iyadoo laga matalay sida qaabka diyaaradaha. waxayna aaladani awood u leedahay inay qaadi karto dhammaan boorsooyinka safarka. faa'iidooyinka uu Hyperloop ama tareenkan casriga ah ku leeyahay dhan walba. haddii aan ka hadalno dhinacyada deegaanka, mashruuca Hyperloop waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay mashruucyada ugu badan ee bey'adda faa'iidada u leh, maxaa yeelay waxay yareyn doonaan heerka wasakhaynta adduunka ee loo yaqaan pollution-ka, isla mar ahaantaana waxay yareyn doonaan heerka qulqulka kuleylka badan ee waxyeelada leh, kaasoo walaac badan ku abuuray khubarada deegaanka, iyadoo sidoo kale ay yareynayso buuqa baabuurta joogtada ah ee magaalooyinka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo ay ku nool yihiin malaayiin dad ah. sidaa daraadeed saamaynta wanaagsan ee farsamadan casriga ah waxay ka soo muuqan doontaa nolosha maalinlaha ah ee shakhsiyaadka, maadaama ay yareyn doonto daahitaanka shaqaalaha ama ganacsatada inay gaaraan goobahooda shaqada. waxaana laga yaabaa inay aakhirka soo afjarto xaaladda xiisadda iyo xanaaqa loo shaqeeyaasha ama shaqaalaha laftooda ka dhex dhaca, taasoo dhammaan caasimadaha magaalooyinka waaweyn ay noqon doonaan saldhigyo tareen oo Hyperloop ama tareenkan casriga ah loo sameeyo, taasoo runtii wax ka bedeli doonta qaabka iyo tayada xiriirka adduunka ka dhaxeeya si uu u noqdo mid isku xiran oo dhinac walba ka wada shaqeeya, isku socodkuna uu u fududaado. sida kor ku xusan waxaa cad in safarka Hyperloop ama tareenkan casriga ah uu bedeli doono fikirka adduunka oo dhan oo ku saabsan qaababka gaadiidka iyo in qof dambe uusan u baahnayn inuu aado garoonka diyaaradaha saacado ka hor xilliga duulista, iyo fikradda ciriiriga ah ama jaamka mustaqbalka ma noqon doonto sida uu hadda yahay. dadkuna kuma caajisi doonaan daahitaanka ama transityada saacadaha badan dadku hadda maraan. Hyperloop waa hab safar oo qaadan doona nidaamka ama muuqaalka safarada hadda jira, laakiin lagu kordhiyay dib u habayn isla markaana loo qaabeeyay hab cusub oo casri ah oo la falgalaya horumarka tiknoolajiyadda casriga ah, iyadoo qofka socotada ah ee raacaya aaladan tareenka ah ee Hyperloop uu raaci doono qolal u qaab ee capsule-ka ama tuumbo sida muuqaalka idinka muuqda ee loo yaqaan bodies, si uu ugu safro isagoo adeegsanaya gaadiidka transport ee gudaha tuumbada weyn oo xawaaraheedu aad u sareeyo, iyadoo la sheegay in wax dhanka xawaaraha u dhigma aaladan ama gaadiidkan Hyperloop aysan jirin. xitaa tareenka xawaaraha sare ee Japan markii loo barbardhigo wuxuu xawaarihiisu gaarayaa 500 kiiloomitir saacadiiba. sidaa awgeed tiknoolajiyadda Hyperloop wuxuu noqon doonaa gabi ahaanba wax ka duwan gaadiidka maanta adduunka la isticmaalo. sidoo kale khubaradu waxay ku soo shabaheen farsamada dhanka samayska sida diyaaradaha oo kale, iyadoo capsule-ku ama gudaha gaadiidka ay marka ay rakaabku raacayaan uu dhex mari doono dhuun gudaheed isla markaana ku soconaysa
jawi caadi ah oo hoose taasoo aad ugu qaab eeg diyaaradaha markii ay joog sare marayso sidoo kale waxaa jira fikrad kale oo ay soo bandhigtay shirkadda tiknoolajiyadda gaadiidka ee Hyperloop taasoo ay kor ugu qaadayso farsamadeeda casriga ah si ay ugu dhiirigeliso caalamka una iibgeyso adeegyadeeda waxayna taasi kor u qaadaysaa kalsoonida dalal badan oo adduunka ah waxaana isla markiiba yimi dalal dhowr ah oo heshiisyada la galay shirkaddan soo saarta tiknoolajiyadda ee Hyperloop si ay dalalkaasi ugu hirgeliyaan tiknoolajiyadda iyaga u gaarka ah ee dhanka gaadiidka sida wadamada Qatar iyo Imaaraadka bishii May 2014 motorkii ugu horeeyay waxaa tijaabisay kooxda ka shaqeysa Hyperloop waxaana ku xigay sanadkii 2015 tijaabo kale kadibna waxa ugu dambeyntii bilowgii sanadkii 2017 lagu hawlgalay tijaabooyin nidaamka isku dhafan ee ugu horeeyay ee loogu talagalay hab gaadiid ama aalad gabi ahaanba ku shaqeysa tiknoolajiyadda Hyperloop kadibna waxaa la gudagalay in la aasaaso kaabayaasha wadooyinka ee Hyperloopka uu mari doono taasoo lagu dabiqi doono 5 wado oo mashaariicda mustaqbalka ee shirkadda tiknoolajiyadda gaadiidka ee Hyperloop waxaana ujeedku ahaa inay bilowdo safarada sanadka 2021 si ay rakaabku ugu safraan iyagoo adeegsanaya tiknoolajiyadda Hyperloop dhanka kale gudoomiyaha gudida agaasinka Hyperloop ee xaruntiisu tahay Imaaraadka ee Bob Gresta wuxuu shaaca ka qaaday in bilowga rasmiga ah ee hawlgalka wajiga koowaad ee Hyperloop ee dunidu uu dhawaan ka dhici doono dalka Imaaraadka kaas oo ay weheliso dhisitaanka jid dhererkiisu gaadhayo 10 kiiloomitir oo fisan laga soo bilaabo xuduudaha Imaaraadka ee Abu Dhabi Dubai lagana gaarsiin doono ilaa Al Maktoum International Airport sida ay xaqiijiyeen hay'adaha socdaalka iyo gaadiidka ayaa hay'addu waxay ku dadaalaysaa bixinta gaadiid horumarsan sida Hyperloop iyo Air Taxi si ay bulshada u helaan adeegyo dheeraad ah